halkani aad arkaysaan waa bartamaha suuqa degmada Xamarweyne ee magaalada Muqdisho iyadoo maalmo hore ay naga xigto Ciidul Fidriga ayaa waxaa si weyn looga dareemayaa caasimadda magaalada Muqdisho oo diyaar garowga Ciidul Fidriga suuqani waa midka ugu mashquulka badan xilliyada ciida oo boqolaal dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa u soo dukaamaysi taga waxa durbadiiba arki karaysa dhalinyaro iyo hooyooyin iyagoo caruurtooda u iibinaya dhar kala duwan si ay maalinta ciida ugu qayb qaataan farxadda iyo damaashaadka Ciidul Fidriga intaan ku guda jiray gudaha suuqa ayaan waxaan siyaabo kala duwan ula hadlay qaar ka mid ah ganacsatada suuqan oo iyagu inta badan ku kala fikir duwan xagga wax iibsashada iyo dhaqdhaqaaqa suuqa ciidihii hore iyo ciidatan waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada oo ku sheegaya in ciidani uu suuqa yahay mid aad u mashquul badan dadkuna ay si aad wax u iibsanayaan hadda waan isku diyaarinayna ciida dadweynaha waxaan isku diyaarinayna ciida iyo adeegsigeeda waxaan iibinaa dharka noocyada kala duwan carwada waxaan ku gadnaa shaarar iyo saraawiil iyo dhar fashion oo diyaarsan oo laga keenay dalka Kenya waan carwo hadda ciidan waa ciid maanta ay dadku aad u ciidayaan barnaamijkana waa runtii يعني ما أنت واحد لا دريم يا يعني محروها شعورته دتك عادي وكعسنته المركز دتك لما أنتوا إنه واحد قدرنا يسوي قدرنا قدر الشغل عادي يعني عباس أحمد أبو بكر يا عبد الرزاق محمد شيخ قري وحي كمديهن دلنيرada suuqani uu ganacsiga ugu furan yahay waxa ay qabaan fikirkii hore ka duwan oo waxa ay ku sheegayaan in ciidani ay ka wanaagsanayd dhanka mashquulka iyo wax iibsashada ciidihii hore والله عيدي هوري عيدنا حوغا عيد هورا فعلا عيدنا سوق ما جرو magaaladii lacag ma jirto dadkii si hore maaha ciidii hore xoogaa ma sha Allah suuqii ma sha Allah ciidii hore wax kala socdeen la ciidan dadkii hore anaga jaanis u leeyahay laakiin ciidan anaga dadkii wuxuu gacanta qabanayno dadka ma soo marka isku mid maaha ciidan ciidii hore marka xoogaa suuq ahaan fiicnayd magacay waa Cabdisaam Maxamed Sheekh oo magac dheer gure dharkan fashionka dalabyo badan oo noogu yimid socialka macnaha shacbiyada dartooda aan u keenay in aan ka gadno ganacsigana si qofka si uu loo heshiiso waayo qofba waa kala duwan dadka waa kala duwan waxay ka imaadaan China iyo Dubai meelahaas mashquulka waa ciida hore waa kulay wax isma dhama ciid waa taqaana kulay ciid ma dhanta dhar ka duwan un baan keenaa fashionada qof walba fashion Xamarweyne wixii lagu barto taqaana dhar fashion lagu barto ugu dambeyntii waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka iibsanaysa suuqan oo ku sheegaya in ciidani ay ciidihii hore ka duwan tahay dhanka naqshadaha kala duwan ee dharka suuqa soo galay waxa ciida ka sii dambeeyso waxa dharku waa isbedelaan tayadooda iyo fashionka dhar mar walba waxay ku xireen dharka si uu kala qaalisan yihiin iyo sida fashionkooda waqtaas lagu daadsan yahay sida soo baxaan uu kala qaalisan yihiin aad weyn waa ku faraxsanahay ciid inaan ku iidaan rajayn insha Allah waxaan ka imaaday degmada Afgooy waa ciid yani horta Soomaalida oo dhan aad bay u wada faraxsan yihiin saad u wada jeedaan ciidani dadka oo dhan waa wada faraxsan yihiin waxaan doonayaa inaan halkaan zaid aan u adeegto عبد القادر عمر عبد اللفيتك بولشة تيفي مقدشو